insha Allah taala waxaynu u galeynaa qaadkii iyo qisooyinkeena iyo raagaagaabna waa taanini wayna qisooyinkii waynaga bateen marka maalintii ilaa 3 ayaynu israacineynaa waxaana walaalayaal idin sheegaya ugama jeedna marka yaani inaan dadka kaga qoslino ee waxa weeyaan runtii waxyaalo murugo mudan oo tilmaamaya dhibta ummadeena haysata iyo dadka qayilaya dhibaatada haysata inta ay leegtahay bayna tusinaysaa nin shalay la kulmay wuxuu wallahi waxaanu idin sheegayna waxa ka badan intaanu qarsanayna buu ee aan sheegi kale dhibtana haysata waxaanu qarsanaynaa cidnaba u sheegaynin ba ka badan inta ay sheekha waa sheegaysaane aanu idin sheegnay marka inay dadku ogaadaan oo ay baraarugaan oo waxaan quud awliya inaanu quud iblis inuu yahay mukhadaraad inuu yahay dadkii waarinaya sharafdoodii meel kaga dhacaya aqligoodii luminaya inuu yahay ayaan uga jeednaa 3 arimood dhacdo ayaan maanta idin sheegaya dhacdada koobaad Hargeysa ay ka dhacday qisada hore aynu ka sheekeynay bay ku dhowdahay laakiin arrin yar oo faniya bay kaga duwan tahay waxaynu soo tilmaanay nin sidoo qayilayay qolada qayilaysa ka kacayo inta wasuuliga galay macawisi ay ka sii dhacday oo deedo suuligii markuu ka soo baxay macawisi soo qaaday oo war macawistaasi yay ka luntay oo deedo halkiisa soo dhaxisaagay taasi horta ku dhowdahay nin dalalkan carabta ka shaqayn jiray siiba imaaraadka oo qaadka lagu cunin waxyaalaha aan la yaabana waxa kamida imaaraadka iyo dhulalkan qaadka lagu cunin baa ninka Soomaaliga ay tagaya 6-7 sano joogaya qaad cuni maayo waxna u noqon maayo mar alla marka uu halka yimaado sidii ari abaar laga soo reeyo doog la keenay ayuunbu dabeetana dul fadhiisanaya bal hadda aqligiisu siin maayo warinta saad ka maqnaydo muxuu kaala maqnaa dib mooyaan dheef muxuu kaala maqnaa nin imaaraadka ka shaqaynayay baa soo degay saaxiibadii baa ka hor yimi wuxuu waratu talabatay ma ahay baratu qaadka ugu wanaagsan magaalada inageeyo bahalka inoo soo qaada buul maday magaca ku sheegayeen magaciisa hadda waan ilaa ma kala aqaan magaciisa oo bahal waaweyn oo dhaadheer baa nin waliba kiilo soo qaatay gurigii baa markaa la tagayo door farbadani joogaan oo loo diyaariyo de janaala soo degayo waa la wada sugay waa la qayilay irkaasa mirqaan la maray dabeetana ninkani de bariyaha ma cunine waa gubtay aad buu gubto waa dhido waa kulaado wuxuu doonay inuu soo maydho suuligii buu galay gurigu daaradu weyn buu leeyahay leyd baa ka shidan dumarkii maqsiga ay fadhiyaan ma maqsiga laakiin soo jihortiisa ay mariyay ku kawadeen 4-5 dumar ninkii intuu shaar yar uu soo gashaday ayuu iska soo baxay qoladii uu la qayilayay ayuu dhex yimi oo qoladii baa ku qoosay waxa Allah war waxaad mirqaatay war mariya xageed kaga timi dumarkan yara yaabay ee sii jeesayna wuu arkay dumarkii uu dabeetana u tagay wuxuu sooray markii dhaweydaan idin soo maray waan qaawanay xaliga hada waliba waa sidii dumarkii mid gurguurata oo aqalkii gurguurad ku gasha mid gidaarka madaxa saarta mid wajiga dhulka dhigta ayay yeesheen dabeetana markuu arkay hadana waxa dhacay ayuu hadana is arkay ninkii intuu suuligii si degdeg u galay ayuu kadii ka boodo toobu yiri kadii ku ka boodo bal hada walaalayaal ninka yaani janaaraha la sugayay ee loo han weynaa bal heerka uu gaarsiiyay oo laga yaabo dumarkaasi marka deetoliya xididba inay lahaayeen bal eego horta qisamidi waa taa laba kalena miyay ka dhacayno waa laba aadi la xad isugu dhow nin baa iga sheekeeyo wuxuu waliba niman adeeradaya ayay arrintaasi ku dhacday nin baa aad u qayilay intuu gurigii qaad la tagay aroortii ayay awr dhaanay isagii islaantii soo wada kaxeeyeen ruuxa dumari ilmay wadataa marka wuxuu leeyahay dhaanka ka soo celisa gabadha adigu leedahay tuulada aad u qaadoonatid ninkaasi wuxuu igu yiri 24 saac bahalka markaad ka dheertay doorogadiisu ka bixi maysa buul oo nin waala baa tahay tuuladan uu tagayayna qaadka lama dhiga gaari baa markaa imahana gawaari yar baa miyiga qaadka geeya barkii halkii tuuladii yimaadeen ee barkadii uu ka dhaaminayna intaan u muuqato ayuu arkay gaarigii qaadko soo ordaya dabeedna inaan tuulada istaageen oo qaadigeena wuu ogaa ruuxii dumar ahayd dulinaa ilmaa ii dhiibo awrka oo barkada ku xul awrka fadhiisi oo ilmaa ii dhiib buu yiri wuxuu dabeedna ka fikiray khidadii uu ku joojin lahaa gaariga wadadu way kala weecanaysaa oo midna tuulo xaggaas ay weecanaysaa midna tuulo xaggaas wuxuu ku fikiray midna ilmaha dhig
midna adigu istaag gaarigaasi si aanu ku dhaafin wuu qaado ilmihii mid buu dhigay isna mid buu istaagay gaarigii baa soo galay ilmihii uu jiri gaaray dirqi buu bireega kaga qabtay ruuxii dumar ahayd baa aragtay ninkii halku marayo inuu ilmihii la beegsaday yani xataa ninkaasi inuu ilmaha arki waayo gaarigaas ku jirsiiyo dee waxba kumay ahayn yani inuu si uu gaarigaa u joojiyo oo qaad uga helo ilmihiisii yaraaye uu sitay inuu hor dhigo oo khatartaa geliyay isna kale istaaga ayuu gaarsiiyey ruuxii dumar ahayd intay awrkii halkii ayna iskaga dhaqaaqday ilmihiiba ayay wadada ka baxday ninkii markuu arkay mushkiladii ku dhacday halkiiba hortuqaadkii ku joojiyay ilmihiina ku qaaday awrkiina ku soo dhaamiyay ruuxii dumar ahaydna erga ayaa loo diray bal halku walaaliya ninkaana gaarsiiyay qisada kale iyaduna taa ku dhow waxa weeye sidaasoo kale isagana nin baa soo dhaamiyey qaadkiina wuu ka dhargay bahalka dee intaana wuu ku jiraa daydagiis iyo cunidiisuna labaduba waa darooga gaara ninkii awrkii intuu dhaamiyey buu geed halkana ku xidhay tuuladiibuu ayuu qaad buu ka waayo gaari hargeysa u baxaya ayuu ku soo booday wuu ilaaweyba awrkii hadhaanka ahaye halkii intuu saaray uu ku xidhay waa soo socday oo waa daabiyadaha durugsan oo habeenkii ayaa tuulo dhexe ayuunbuu meel ka soo degoo tiriguna war yaa hebel war xaggeed ka timi xilliga war awr dhaana baan waday buuhi oo halkeed deganayde aad awrka ka soo dhamisay dee meel heblaayo dee meel heblaayo aad maraysaa iminka hargeysa dusheedii baad maraysaa baa la yidhi halkaasuu ku baraarugay isku ogaaday garabtii tuuladiina awrkii oo kolba dhinac u boodaya oo halkii haamii saaran yihiin baa la arkay war awrkani muxuu ahaa dee waa hebel baa watay oo meey waa kii gaarigii hargeysa fulay baa la yidhi bal walaalayaal heerka uu bini aadmigii gaarsiiyey bal u fiirsada walaalayaal haddaba baarakallahu fiikum walaalayaal inta aanu dee halkaa idin gaadhsiinne tol iyo xididba aanad adoo macawisa degta ku sita aanad dhex marin intaanad ilmahaaga laamidaa dhigin adigoo qaad ku doonaya ama ku joojinaya ama awrkaaga iyo dantaada iyo meheradaadoo furan nin baa iga sheekeeye meheradii oo furan inuu ka dhaqaajiyo qaad doonto deetana aan mid lagaga tegin ama meheradaadii oo furan aad ka dhaqaaqdid baarakallahu fiikum waxaynu u baahanay ciddii aynu uga ducayn lahayn maanta ee istaagi lahayd baynu u baahanay baarakallahu fiikum weliba maanta waxaan ka bilaabayaa arrin kaloo badan baa jiro dadkii waxay leeyihiin mid aabbihii uga taagla mid inankiisii uga taagla mid walaalkii uga taagla mid abtigii uga taagla mid adeerkii uga taagla baa badan nooga ducaa baa leeyahay waa baystaaga kuwaasow masaajidku waa wada kacaya baan u malayn markaa iska fadhiya waa masaajidkoo dhan ayada taasi waa masaajidkoo dhan waa masaajidkoo dhan bay taasi noqonaysaa markaa ka aabbihii uga taag waaye ka inankiisa uga taag waaye ka walaalkii uga taag waaye ka abtigii uga taag waaye yacni naafadu meel walba waa joogtaa naafadu aqal walba waa ku xidhantay ku walaalkii naafiyey ku aabbihii naafiyey ku abtigii naafiyey reer aanu cid ka naafaynin ama aanay u xidhnaynin ma jirto ilaahay waxaan weydiisanaynaa dadka inaga dhex kacay ee ubadkoodii iyo waalidiintoodii iyo qaraabadoodii daroogadaasi ay ka naafaysay ee looga taag waayey ilaahay waxaynu weydiinay qalbigooda inuu ka saaro ilaahay waxaynu weydiinay qalbigooda inuu ka saaro ilaahay waxaynu weydiinay wax khayr qaba inuu ugu bedelo ilaahay waxaynu weydiinay wax khayr qaba inuu ugu bedelo ilaahay waxaynu weydiinay waxbarasho cilmi inuu ugu bedelo ilaahay waxaynu weydiinay arsaaq waasic inuu ugu bedelo ilaahay waxaynu weydiinay wax khayr qaba ku mashquulaan ay ku ilaawaan ilaahay inuu siiyo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa aafada dhammaanteen inuu ina wada dhaafiyo ilaahay waxaynu weydiisay aafooyinka kale inuu gees mariyo dhammaanteena inuu ilaahay waalidkeena iyo innagaba inoo dambi dhaafo ilaahay laylatul qadriga inuu ina waafajiyo ilaahay inuu inaga yeelayno iyo waalidkiiba kuwa naarta ka xoreeyo subxaana rabbika walaalihii aan la ballansanayn iska daayay qaadkee looga duceeyey ballankeenii maanta ha tagaan maktabadda dabaqa afraad hortiisa ha tagaan halkaas ayaa loogu imanayaayo insha allahu tacaala hawlaheenni baynu ka sii wadayna halkaas wabillahi tawfiiq